kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka kulanka wararka waa 26 bisha Juun 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkeenana waxaa kamid ah Ra'iisul Wasaare Khayre oo ku dhawaaqay war farxad gelinaya Somaliland Muuse Biixi oo ka jawaabay tallaabadii Sacuudiga ee ka dhanka ahayd Somaliland Mareykanka oo doonaya in wada hadal lagu dhameeyo muranka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya xaaladda caafimaad ee Mukhtaar Roobo oo laga deerinayo madaxweyne xaaf oo shuruud adag ku xiray la kulanka Ra'iisul Wasaare Khayre ee magaalada Cadaado iyo weerar lagu dilay saraakiil booliis ah oo ka dhacay dalka Masar intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu waaweyn markana waxaad ku soo dhawaataan faahfaahinta wararkeena ka horse hadii aad tahay daawade qof nagu cusub subscribe saar channelkeena oo gambaleelka furo hadii aad ka hesho wararkeena like saar oo aragtidaada hoos noogu reeb aynu ku bilownay madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ka jawaabay tallaabadii dawladda Sacuudiga ee ka dhanka ahayd Somaliland xukuumadda Somaliland ayaa mar kale si adag uga hortimid warqadda ay dawladda Sacuudiga u dirtay Somaliland uguna sheegtay in warqadda caafimaadka xoolaha sanadkan ee xajka ay bixinayso dawladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo xalay ka qayb galay munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyay 26 Juun waxa uu ka hadlay go'aanka uu Sacuudiga ku hoosgeeyay dawladda Soomaaliya madaxweyne Biixi ayaa waxaan la aqbali karin ku sheegay go'aankaasi kaas oo ka soo baxay Sacuudiga isla markaana la xiriira dhoofka xoolaha Somaliland ku xirtay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ka soo qaadato warqad caafimaad ee xoolaha laga dhoofinayo dekedda Berbera Biixi ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in ganacsatada reer Somaliland aysan marnaba ogolaan doonin shuruudahaasi uu Sacuudiga ku xiray dhoofinta xoolaha Somaliland dawladda aan wali la aqoonsan ee Somaliland ayaa iyadu inta badan la kulanta caqabado noocan ah oo lagu xirayo in ay ogolaansho ka soo qaataan dawladda Soomaaliya inkastoo ay ku doodo in ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale balse ilaa hadda caalamku waxa uu aqoonsan yahay maamul ka tirsan Soomaaliya xog la helay ayaa sheegaysa in ay liidato xaaladda caafimaad ee wadaadka u xiran dawladda Soomaaliya Mukhtaar Roobo Abu Mansuur waxa laga deerinayaa xaaladda caafimaad ee Sheekh Mukhtaar Roobo oo muddo 6 bil u xiran dawladda Soomaaliya kadib markii uu qorsheystay ka qaybgalka doorashada Koonfur Galbeed oo ay ka dhineed dhowr maalmood markii dawladda Soomaaliya ay soo xiraysay Mukhtaar Roobo ayaa habeen hore laga soo saaray isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho halkaas oo uu ku qaatay muddo 5 habeen ah sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen qaar ka mid ah shaqaalaha isbitaalka iyo heladiisa Abu Mansuur ayaa ka xanuunsanaya kaliyaha waxaana la sheegay in uu aad u dhamaaday isla markaana ay ka sii darayso xaaladiisa caafimaad dhaqaatiirta isbitaalka Digfeer ayaa ku tariyay in Sheekh Mukhtaar Roobo loo qaado dibadda si loogu soo daweeyo dhakhtarka gaarka ah ee Abu Mansuur ayaa saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya kula tariyay in sheekha loo qaado dibadda maadaama ay adag tahay in dalka wax looga qabto xaaladiisa Mukhtaar Roobo oo habeen hore saq dhexe laga soo saaray isbitaalka Digfeer ayaa lagu celiyay xarunta hay'adda nabad sugidda Soomaaliya ee Habar Qadiijo waxaana la filayaa in dhawaan loo qaado isbitaal ku yaala magaalada Jidda ee dalka boqortooyada Saudi Arabia waa markii labaad muddo ka yar 40 cisho isbitaal la dhigo Abu Mansuur oo kaliyaha ka xanuunsanaya mana jirto ilaa hadda wax dadaal ah oo socda oo lagu sii deenayo Sheekh Mukhtaar Roobo Cali bartamihii Ramadaanka ayaa sidoo kale Roobo la dhigay isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho waa xarunta caafimaad ee ugu weyn magaalada iyo qaar ka mid ah wadamada gobolka hadii wax looga qaban waayana waxa loo badinayaa in loo qaado wadamada kale ee dibadda Roobo waa adag tahay in dal walba loo qaado sida wadamada caafimaadka ku wanaagsan ee India iyo Germany balse waxa la filayaa in loo qaado boqortooyada Saudi Arabia iyo dalka Qatar oo aad u taageera Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa ku dhawaaqay war farxad gelinaya Somaliland Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo munaasabadda 26 Juun uga qayb galay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa ugu hambaliyay maamulka Somaliland
xuska 19-aad ee ka soo wareegatay markii ay xuriyadda ka qaateen gumaystihii Ingiriiska gaar ahaan maalinta madaxbannaanida goboladaasi ee 26 Juun. Kheyre ayaa sheegay in dhibaato siyaasadeed oo dhacday lagu kala tagay balse aan lagu kala tagin wixii gaaray Somaliland. Ra'iisul Wasaare Kheyre ayaa tilmaamay in xukuumaddiisa ay ka xun tahay dhibaatadii gaartay dadka degan gobolada waqooyi ee Soomaaliya. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in dawladda federaalka ah ay ka garaabayso dhibaatada gaartay walaalaha Somaliland. dhinaca kale ra'iisul wasaare Kheyre ayaa ku amaanay shacabka iyo madaxda maamulkaasi dadaalka ballaaran oo ay u galeen madaxbanaanida dalka iyo midowga koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya. Somaliland oo 1991 ku dhawaaqday in ay ka go'day Soomaaliya inteeda kale ayaa tan iyo markaasi raadinaysay madaxbanaani inkastoo aysan wali waxba ka hirgelin. hadalkan ka soo yiray xukuumadda Soomaaliya ayaa imaanaya xilli shalay dawladda federaalka ah ay ka biyadiiday ka qaybgalka shir ay isugu imaan lahaayeen wakiilo ka kala socday labada dhinac. shirkaas oo lagu qaban lahaa magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya waxaana kali ku noqday Somaliland. dawladda Mareykanka ayaa waxa ay si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay dhexdhexaadinayso dalalka Soomaaliya iyo Kenya oo xilligan uu ka dhaxeeyo khilaaf ka dhashay sheegashada Kenya qayb ka mid ah dhulbadeedka Soomaaliya. safiirka Mareykanka ee dalka Kenya Ambassador Kayleigh McCarter ayaa xaqiijiyay in dawladdiisa ay wado xilligan dhexdhexaadinta labada dawladood ee Soomaaliya iyo Kenya, isla markaana uu sheegay in labada dal ay yihiin kuwa aasina u kala maarmin. waraysi uu siiyay telefishinka Citizen ee laga leeyahay dalka Kenya, Ambassador Kayleigh wax laga weydiiyay haddii meelo kale lagu xallin karo muranka badda oo aan ahayn maxkamadda cadaaladda adduunka ICJ. waxa uu ku jawaabay waxa hubaal ah in labada dal ay yihiin kuwa wax wadaag ah oo uu dagaal kala dhaxeeyo ururka Al-Shabaab. annaga waxaa si toos ah ugu jirnaa xallintooda waayo ay wanaagsan tahay in la wada ilaaliyo daris wanaaga, ayuu yiri Ambassador Kayleigh. safiirka Mareykanka ee waddanka Kenya ma caddeyn in labada dawladood ay ku qanacsan yihiin dhexdhexaadinta Mareykanka, waxaana hore u jirtay in madaxda dawladda federaalka ah ay sheegeen in marnaba aysan ogolaan doonin in Kenya ay qaadato taaka ka mid ah dhulka Soomaaliya. xog aan helnay ayaa waxa ay sheegaysaa in madaxweyne Xaaf uu shuruud adag ku xiray la kulanka ra'iisul wasaare Kheyre ee magaalada Cadaado. waraan ku helayno magaalada Cadaado ayaa sheegay in madaxweyne Xaaf uu shuruud adag ku xiray la kulanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo tagaya magaalada Cadaado. ra'iisul wasaare Kheyre ayaa qorshihiisa ugu muhiimsan ee Cadaado waxa ay tahay la kulanka madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo maalin ka hor tagay magaalada Dhuusamareeb. waxaana wararka qaar aynu helayno ay sheegayaan Xaaf uu shuruud adag ku xiray la kulanka madaxweyne Xaaf oo ku aadan la kulanka ra'iisul wasaare Kheyre oo ku aadan inuu ogolaado in doorashada Galmudug ee la filayo inay bisha July dhacdo lagu qabto magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. inkastoo ra'iisul wasaaruhu uu hore u shaaciyay in doorashada ay ka dhacayso magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug. xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, odayaasha dhaqanka, madaxweyne Xaaf iyo siyaasiyiinta ku sugan magaalada Cadaado ayaa isla gartay in doorashada lagu qabto Cadaado haddii kale muran ay ka keenayaan. ugu dambeyntiina 7 sargaal oo booliis ah ayaa lagu diray weerar jihaadi ah oo ka dhacay waqooyiga Sinai ee dalka Masar, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi. weerarka oo ka dhacay meel u dhow magaalada caasimad goboleedka ah ee El Harish ayaa lala beegsaday xarun ay isugu yimaadaan booliiska, sida ay sheegtay wasaaradda. 4 ka mid ah kooxihii weerarka soo qaaday ayaa sidoo kale la dilay kadib isku dhacay weerarka kadib. mid ka mid ah dadkaasi ayaa dhintay markii uu qarxiyay jaakad ay walxaha qarxa ku jireen oo uu xirnaa. waqooyiga Sinai ayaa waxay muddo xarun u ahayd koox muqaawano ah, waxaana mas'uuliyiinta Masar ay sanadii tagtay bilaabeen howlgal ka dhan ah boqolaal mintidiinta ah iyo tobaneeyo askar ah ayaa lagu dilay howlgallada, sida lagu sheegay warbixin dawladeed oo aan la xaqiijin karin maadaama Sinai aan loo ogoleyn suxufiyiinta. warkii oo aad kala socoteen janalka kulanka wararka daawadayaal xilligan wanaga inta daawade haddii aad tahay mid nagu cusub fadlan subscribe saar janalkeena oo gambaleelka furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela wararka aan halkan soo gelino. like saar oo commenting garay mahadsanidin.